barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay alaaba waxaan ku soo qaadanaa arrimihii ugu xasaassanaa toddobaadkan ka soo gudbinay sida aad la wada socotaan magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa muddooyinkii dambe ka jiray hardan siyaasadeed oo aad u xooggan siyaasiyiin u badan mucaarad ayaa gaaray magaaladaasi baydhabo kuwaas oo doonaya ololana ugu jira in ay talada ka tuuraan hoggaanka maamulkaasi ee uu majaraha u hayay shariif xasan sheekh aadan waxaa maamulka dhankiisa uu waday qorshayaal uga hortegayo arrimaha ay doonayaan siyaasiyiintaasi gadoodsan ee maamulka in ay isbeddel ku sameeyaan haatan dadaal ugu jira haddaba maxuu salka ku hayaa khilaafka siyaasadeed ee ka jira koonfur galbeed haatan xilligaanse ma loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka maamulka koonfur galbeed ee shariif xasan sheekh aadan arrimahaas ayaan ku gorfayn doonaa waxaa nagala qaybgelaya xildhibaano heer dawlad dhexe ah oo maamulkaasi kuwa laga soo doortay ah iyo xildhibaanada labada dhinac ee mucaaradkii muxaafadka kala taabacsan ee maamulkaasi koonfur galbeed marti sharafta nagala qaybgelaya waxaa ka mid ah brofesor xildhibaan maxamed cumar dalxa oo xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay ka mid ah gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda iyo weliba xildhibaan cali xasan cismaan oo ka mid ah xildhibaanada baydhabo ku sugan ee ka soo horjeeda madaxweyne shariif xasan sheekh aadan wasiiru dowlaha wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa nagala qaybgelaya cabdiqaadir cabdiraxmaan cali iyo xildhibaane xasan balaag oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan waxaa kaloo nagala qaybgelaya ugaas maxamed weli oo ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ee aadna isha ugu hayay arrimaha ka taagan koonfur galbeed anigoo jimcaalaha waa idinla socodsiinayaa farsamadu waa injineer mustafa cabdi abshir waxaa naga xusuusinah in dhegaystayaasheenna meel walba oo caalamka ay ka joogaan toos ay noogala socdaan aaladda live streamka ee radio shabeelle.com boggeenna internetka sidoo kale dhegaystayaasheenna ay nagala jaan qaadayaan barta aan facebookga ku leenahay shabeelle media network oo haatan doodda ay live ka tahay dhegaystayaasheenna gudaha lambarka gaaban ee 488 ayay aaraadooda noogu soo gudbin doonaan ama toos waxay nooga soo wacayaan 85 ugu horrayn aan siiyo xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa xildhibaane arrimaha koonfur galbeed haatan ee khilaafka siyaasadeed ku aadan maxaa kaaga baxaya xilli dhibaatooyin ay ka taagan yihiin deegaanada maamulkaas koonfur galbeed ee gobollada shabeellaha hoose baay iyo bakool bismillahi raxmaan raxiim jimcaale adigiyo guud ahaan radio shabeelle bahda ka tirsan marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaan iyagana qadarin mudana salaamayaa asxaabta qadarinta le ee iyagana khadka maartay iyagana ku jira ka tirsan ama dawladda dhexe golayaashooda ama maamulka koonfur galbeed maartay ka tirsanaadaani iyo dadka Soomaaliyeeduna dhageysanaya intaba waxaan dhamaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan jawaabta u imaado waxa ka socda runtii baydhabo oo aad maaragtay runtii dhegta ay u taagan tahay maalmahan dadna runtii way u riyaaqayaan dadna way dhibaysaa marka khilaaf sidiisaba u yimaadane waxa uu u daran yahay dadka ay saameyn ku reebi karto ama ay wax u dhimi karto ama ay soo gaarsiin karto waxyaabaha laga filan karo hadduu khilaafkaasi weji kale uu yeesho ayadoo aan dareemayno maaragtay maanta heerka hadda khilaafkaasi uu marayo inuu mudan yahay in laga hortago ama la dejiyo ama wixii u baahan wadahadal lagu dhameeyo si maaragtay aanan waxba u dhimin hadda gobolkaas maamulkaas ee curdanka ah ee dadkiisa dhibaatooyin fara badan oo taariikhi ah oo ay soo mareen oo haddii ay ahaan lahayd dagaaladii jabhadaha ee waddanka ee lagu dirirayay ujeedooyin kala duwan haddii ay ahaan lahayd maaragtay midkii qabaa'ilada oo runtii oo ilaa maaragtay wax badan aan taariikh ahaan aan ognahay waxa uu soo gaaray gobolkaasi iyo maaragtay iyo dadka ku nool
marka maadaama fadlan martida cidda raadiga u kaagsideen iska damis la isku daray oo ay ka kooban tahay baay iyo boqol iyo shabeellaha hoose midka kale aan runtii haddii la fiiriyo waxa fadlan martida raadiga iska gaabiyaan cidda uu kaagsidan yahay baydhabo oo hadda meesha ee loolanka uu ka socdo ayada waxay haysataa naruuro waxaa la dhihi karaa waxaa ka jiro horumar waxaa la dhihi karaa waxay qabaan deganaansho waxaa la dhihi karaa waxay haystaan wax aanan haysanin gobollada kale oo horumarkaasi marka iyagu waxaa hadda badi ee u muuqda waa talo iyo maaragtay iyo loolan siyaasadeed laakiinna gobollada kale waxaa u dheer amni la-aan horumar la-aan iyo deganaansho la-aan iyo nolol xumo marka gobolladii aan noloshaba haysanin ee iyaga baydhabo ay la wadaagayeen haddii kuwii deganaa ama baydhabo iyada ay hormuuday u ahayd ee hawsha ka socotay ee koonfur galbeed oo dhan haddii iyada qalalaasa uu ka bilowdo kuwii horay u dhibanaa ee nolol aanan haysanin ee maamul aanan haysanin ee meel ay wax u dhaqaaqaan aanan jirin ee waxoodoo dhan ka sugaya wax baydhabo ka yimaada waxaan u malaynayaa inay arrinta weji kale haddana inay bixin doonto oo gobollada kale oo ayagana inay isku tashadaan oo meel aan khilaaf ka dhammaanayn oo aanan waxba ka soo baxaynin oo maalin walba ay isku degan yihiin oo aan dirirtooda iyo maaragtay isqabqabsigooda gudahooda ay ka weyn tahay waxa la filayay xilligan inay ku tallaabsadaan maamul goboleedyada kale ee ayaga la-ayni ah horumarka iyo waxa ay dadkooda ay higsanayaan inay helaan la rabay marka iyadoo awalba marka ay ulba ku tukubaysay maaragtay runtii nabadda koonfur galbeed oo aan ognahay haddii maanta ciidamada Ethiopia jooga ay ka baxaan waxay ku dambeyn doontaa la ogeyn horeyna maaragtay baydhabo dhowr jeer loo dumiyey inta ay dhisantay la dumiyey haddana maaragtay dumiskii kale haddana haddii uu yimaado ayadoo keliya la eegayo kursi iyo siyaasad oo ninkii maalinta ku fadhiyo berina nin kale iska imaan karo oo aanan loo aaba yeelin dhibaatooyinka ee jira ee ay u nugul yihiin weliba dadka aan ognahay ee Soomaaliya marka loo fiiriyo oo maanta marka aad fiirisid nolosha dadka guud ahaan Soomaaliyeed marka la qiimeeyo gobolladaasi ee barwaaqada ahaa dadka ka yimaada ayaa maanta dadka horumar la-aanta ku habsatay ee u baahan in loo istaago sidii ayaga dad maaragtay noloshooda iyo aayahooda maaragtay loo badbaadiyo u baahnaa haddase laakiin uma baahna dood iyo muran iyo wixii shalay markii baydhabo ka dhacay siday ku bilowdeen wax lamid ah aan dareemayno haddana waxaan aniga aan ku talin lahaa anoo runtii aan mar waliba aan nabadda iyo horumarka aan la jecelahay yani ummadaas oo aanan qof la fiirinin iyo shaksi bedelka la fiirin karo inay noqoto maxaa annaga aan ku horumarin karnaa gobolladan maanta shalayba ayaga siday isku raacaan ee ilaahay og yahay wax laga maray iyo naftirkiisa koonfur galbeed maamul ahaan sida lagu dhisay dhibka ayaga ay ka mareen ay og yihiin ay xabada isu qaateen oo ay isku laayeen shalay ninkii 6 gobol waday maanta waa ka aakhiru ka aaday isagoo maamulkii 3 galbeed maanta uu ku soo biiray Allah naxariista madoobe nuuno berina Shariif Xasan hal sana u dhiman haddii ee wada hadal lagu dhameeyo Shariif Xasan beri dhaweyd waan la hadalnay madaxweynaha koonfur galbeed annagoo ah xildhibaanada ka soo jeeda maaragtay dawladda dhexe in wixii khaldan ee meesha jiro ee cabasho ah in laga wada hadlo xildhibaanada ee laftirkooda ee ka tirsan koonfur galbeedna inay ka qayb qaataan ee arrinta la dejiyo ee aanan noqonin mid u horseeda burbur oo maamulkiiyo faraha ka baxa ee meeshaasi mar dambe haddana meel dheer laga raadiyo koonfur galbeed dhismaheedii arrintaasi Shariif Xasan su'aalo fara badan oo aad u adag ayay soo hordhigeen runtii xildhibaanadii ka qayb galay ee weliba kuwa baay iyo boqol ka soo jeeday u badnaayeen oo arrimahaas ee weli xataa qaabka wada shaqaynta ee dawladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed si gaar ah ee xildhibaanadaasi ay farta ugu maatay godayeen waxa waaye waxa la isla wada gashay in la tago oo dadka waxa meesha jiro laga wada hadlo dad bisayl oo siyaasadeed isxallin kara wax iska dhaadhicin kara oo caqliga isu celin kara in la noqdo aanan durbadiiba wax keeni kara in la iska hor yimaado ama burbur keeni kara ama kala tag keeni kara inaysan arrinta noqonin taabaan annaga laftirkeena aan xoojinaynaa shabeellaha hoose haddaan hayna annaga dhibaato noo gaar ah oo gobol ahaan annagoo aan qabno aan ognahay haddana waxaan siinaynaa fursadda mar weliba in maaragtay baydhabo oo iyada hadda aanan caasimadii ahayn oo baraawa ay tahay caasimaddu
oo aan baraaban wax ilaa ay hadda xataa 2 kursi allaha ka dhigay oo aan horumar la gaarsiin aanan jirin ama afgooy ha noqoto ama ama laweyn ha noqoto ama qoryoolay ha noqoto ama kurtuwaari ha noqoto ama sablaale ha noqoto ama awdhegle ha noqoto aan ognahay xaaladda ay ku jiraan ee dadka ee laba yaxaas labadiisa daan dhexdooda ay ku nool yihiin haddana haddii ay ka bilaabaan walaalaheenna baay iyo bakool dadka u badan ee weliba iyaga ay noqdaan kuwa halkaasi durbaanka tuma hadee waxay noqonaysaa shabeellaha hoose in tala kale iyadana ay qaata halkaas ii joog xildhibaan dalxa halkaas ii joog oo kugu soo noqonaya xildhibaan cali xasan aad iyo aad haye khilaafka siyaasadeed ee baydhabo ka taagan maamulka koonfur galbeed ku fooraraa bal ka warbixi ra'yigaada ku aadan adeero horta ereygaas aniga ma isticmaalahay khilaaf ma jiro waxaa waaye annaga xildhibaana haddaan nahay shaqadeena waa 3 qaybood waxaan masalaa dadka ayaan wakiil ka nahay waxaan wakiil oga nahay inaan waajibaadkoodana u sheegno wixii xuquuq ay leeyihiin ay dawladda ku leeyihiin inaan usoo dhicino waajibaadka waxaa kamid ah inaan canshuuraha lagu leeyahay ay bixiyaan si adeeg loogu sameeyo waxaa kaloo kamid ah in maaragtay ayagana xuquuqdooda loo raadiyo oo bulshadeed sida ceelin loo qodo iskool loo sameeyo isbitaallo loo sameeyo marka horta khilaaf ma jira annaga maamulka wixii aan ka dareyno oo culays ah yaan waxaan ku shaqeynay inaan mooshin usoo gudbin ama mooshinka wuxuu ka odkamaa baarlamaanka dhexdiisa ama dhinaca dawladdu ka yimaadaa waana ereygan mooshinka soomaaliyada waxay ka qabtaa fabia ma aha mooshin waa soo jeedin haddaad wax aragto inaad soo jeedin samayso baarlamaankana wuxuu ku kala baxaa codug ku kala baxa horta khilaaf ma dhahayo anigu saasaan kugu dhigaya arrinta hadda socotana waxaan anaga eedeynaynaa maaragtay fulintaan eedeynaynaa oo ah in maaragtay dastuurkii lagu tuntay in wixii loo idmadayba aan la qabanin muddo 3 sana annagana muddo 2 sanaan jirnay intaas waa xeerinayna in wax laga bedelo khaladaadka la soco wax walba la hagaajiyo mooshinka hadda socdana hadda ma bilaabanin 2016 bilowday oo aan madaxweynaha la fariisanay aan yidhi waxaana khaldan way hala soco ilaa hadda wax laga soco quman uma aragno marka waajibaad badan oo la qaban lahaana waa la hor istaagay xuquuq badan oo la heli lahaana waa la diiday waa la burburay marka sidaas daraaddeed annaga waxaan nahay maaragtay anigaan horjoogo wahay kutladaasaan waxaan ka shaqeynaynaa inaan isbeddel samayno teeda kale ereyada meesha ka yeeraan maqlaynaa annaga isbeddelka aan samaynayna dhibaato ma wato haddii qof bini aadan ah meesha laga qaado qof kale la keeno dhibaato miya haddii waxaan ku xasuusinayaa nabigeeni suubanaa markuu dhintay sala allahu calayhi wasalam sidina cumar uu qaybiyey uu yiri yaa dhiman kara sidina cumar markii dambe uu yimid sidina abubakar markii wuxuu yiri war ninkii nabi maxamed caabudayo nabi maxamed waa dhintay ninkii ilaahay caabudayana waa jooga haddii maanta madaxweynaha tii rabbi u timaado waa burburaysaa miya marka ereyada la isticmaalaya khaldan waxaa waa qofka bini aadamka hadduu khalad galo oo loo sheego oo khaladkiisu sii waayo waa la bedelaya meesha oo wax laisla leeyahay shaksi ma laha haddii loo arko saasaa loo bedelaya marka mooshinka ka dhanka aan wadno oo madaxweynahan ka wadno waxaa wey in isbedel doonaan nahay in nin kale oo quman oo kartideeda iyo dadnimadeeda leh oo ilaahayna waafijiy inuu ummadaan iyo dalkaan dadkaan badbaadiyo inuu meesha u yimaado oo kaasna aan la jaan qaado asagana hadduu saas kalo wax qaban waayo asna waa la kaas martabkiisa marka intaasaan hadda kuu sheegaya waa tahay xildhibaan cali xasan usoo noqonaya wasiir cabdiqaadir cabdiraxmaan cali waxaa soo saarayseen awaamiir kala duwan oo shirar inaan la qaban karin ah taas xuriyatul qowlka in ay meelka dhac ku tahay ma muujinaysaa eedeymaha maamulka loo jeedinayase maxaad ku difaacaysaa adigoo wasiirka maamulka koonfur galbeed bismillah waa ku maqlaa wasiir horta aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa idaacadda shabeelle iyo agaasimaha iyo shaqaalahaba taa kadib waxaan kulleyba shacabka soomaaliyeedna dhegaysanaya daafaha caalamka iyo muqdishoba xildhibaanada federaalka iyo xildhibaanada koonfur galbeed aad iyo aad aan u salaamaya anigoo maanta aan aad taariikh weyn ay tahay maadaama siyaasiga weyn ee soomaaliyeed koonfur galbeedna kasoo jeedo xildhibaan dalxa oo aad iyo aad maanta qiimaha uu leeyahay soomaaliya xagga nabadda iyo xagga isdhexgalka iyo xagga fankaba aan aad iyo aad ugu qiimayno
maanta waa maalintii ugu horreysay Janis u helo xildhibaan dalxa isagoo ku jiro ama aan kala qayb qaadanayno dood taa hadda gudbo su'aasha aan u guda galo horta xudiyada qowlka cid ku xadgudbi karta male dastuurkeena dabdalka koowaad wuxuu sheegayaa qofka muwaadinka ah ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo codkiisa si xor inuu ku jeesan karo si xorna u hadli karo horta hala aqriso dastuurka hana loo fiiriyo laakiin midda laga hadlayo waxaa in meel laiskugu tago uu lacag soo qaato ciidan aruursado lacag u qaybsho oo ka qayb qaato nabadgelyada dalka taa laga hadlayaa ninkii taa ka yimaado dawladda waxaa ka degan in uu nin usoo duulay dal in uu yahay taasaan laga hadlay maa inay nin muwaadin ah oo codkiisa si xor ku jeesanaya si nabad oo si nabadna ku banaan baxaya ama si nabad aragtidiisa ku jeedinaya cid biniaadan ka hor imaan karta male dastuurkaas siinayo inuu ninka muwaadinka ah xaqiisa ama ka hadli karo ama isbedel kasta uu doonayo ama wax kasta uu si nabad uu ku jeedin karo tan aan ka hadalnay la diidayaa waxaa ciidamada aada loogu yeerayo anigoo ku jirno dagaal looguna yeerayo in lacag la siiyo dhibaatana lagu geysto taasaan kasoo horjeednaa aan qaadanaynin lana qaadan doonin hadduu ilaahay idmo midda kale haddaan u guda galo xaaladaha jiro sida hadda loo dhigayo warka isbedel sidiisa wuxuu ku yimaadaa dal nabad ah dal xor ah in tuuladiisa iyo degmadiisa ka warkeeni karo keeni karo la qayb qaadan karo ummadda ayaa horta isbedel samayn karo annaga xaqiiqda markaan ka hadalno tuuladii aan ku dhalanay iyo degmadii aan ku dhalanay nabad ma aha marka ninaan nabad haysanin yiri aniga isbedel baan samaynayaa isbedelkii yaa loo sameeyaana loo qabtaa dalkii dib u xarayn ku jira dagaal ku jirnaa dagaal hadduu ku jiro lagu jirana sidoo adduunyada waxay ku horumartay in xaqiiqda la abaaro marka aan dagaalka ka soo noqono oo wadankeena nabad noo noqdo ninkii manfacayo ninkan manfacinba markaas waxay taallaa xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeedna waxay ku dhisan yihiin waa cod iyo aqlabiyad sideedana ma aha qof kasta ra'yigiisa uu isku cabiro dal in isbedel lagu samayn karo dalka nabad ma aha dalka nabad wuxuu ku noqon karaa in aan ka qayb qaadano howlgallada ay ku dhawaaqdo dawladda federaalka iyo in aan rabno sida aan wax u samayno guri iyo maanta iyo gobol iyo degme in tacsi ka jirin ma jirto isbedel aan doonayaa isbedel maxaan ku dannaa waa kan wasiirkii arrimaha gudaha hadartaan oo weli dhaxalkiisa dhammaaday dhibaatadana haysato marka dalka iyo dadka ha loo tuuro kii horaan ku fasilanay maxamed siyaas baraamire aan bixino munaqday cid iska warsatay male maxaan ku bixinay maxaan ku yeelnay cid isdhaxday male maantana dawlad dhisan hadda dee nagala dhaadhiciyo shariif xasan sheekh axmed waa xun yahay war maaha dalka nabad miya waa qofkii xun iyo qofkii fiican horta dalkii aan ugu weynayno tuuladii aan ku dhalanay iyo degmadii aan ku dhalan xor maaha dhibaatooyin ana haysato war yaan wax u buraya yaan wax kusoo bedela yaan ku keena yaan sameeya anaaba xor ahaynba war dalka aan xorayno dhar aan gashano tuuladii aan kasoo warbixino iyo dadkeena eryada saaran aan ka qaadano dagaalkan aa laga qayb qaataan ku baaqaya aniga haddii kale saalan ku jiraynaa waa bedel maxaa isbedela keenaysaa adigii joogaa wax bedeli lahaba adigii taagnaa xildhibaanka tuuladaada iyo dadka la baabiinahayd warka hayba dan inaan isku sheegno ma aha dagaalka aan ka qayb qaadano dalka aan xaraysano ani taasaan ku baaqaya waata ugaas maxamed weli maxaa kaaga baxay aragtidaada ku aadan koonfur galbeed iyo haatan halaa ugaas maxamed weli بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا الله هذا السكالة ثم محمد علينا يا شغلها شبه اللي وعطيق عضوه رسيد معاله في حل معنا يوسف الهجرة انت كديس وحن أنا أقول لها دور قضبا أعبر لها على كذا إذا midda koobaad horta dib badani waa jiraan oo xaaladaha maanta lagu jiro waa wax adag oo markii la fiiriyo Soomaalidu sida ay hadda maanta tahay iyo dhulka siduu yahay iyo kala xirnaantiisa iyo rafaadka iyo waa waxba aad u dhib badan oo qof kasta uu dareemi karo haddana waxaan isleeyahay dadka aragtidiisu way kala duwanaanaysaa qof kastana garashadiisu hadlaya lamana dhigi karo garashadaada ha hadlin waxaa saxa in la yiraahdo qofka waad khaldan tahay oo waxaad ku khaldan tahay adilada saan iyo saan sharciga ama caqliga saliimka iyo wacyiga maanta jira qofka lagu toosiyaa muhiim oo wanaagsan anu waxaan isleeyahay horta nimanka u doodaya shariif xasan
iyo nimanka eedaynaya labadaba waxbaan mudhihi lahaa. qolada hala daaye leh anu waxaan aaminsanahay iska dhaaf Soomaaliya muxuu ahaa koonfur galbeed Soomaaliyaan xal helayninba shariif intuu siyaasadda Shariif Xasan ku jiro waa aniga garashadayda dib ma ogiya dheefna uma u hayaan aaminsanahay koonfur galbeed buusan u haynin Soomaaliyuna u haynin qolo kale u haynin waa nin dib socda ah oo Soomaalida inuu dib u geysto ma ogiye aan maanta la lahayn wanaag buu soo wadaa Soomaaliduna way ka dheregsan tahay dawladdii ku meel gaarku Cabdullaahi Yuusuf baa la ogaa tii dhexe oo berigii muxuu ahaa Shariifka la ogaa hadda la og yahay xaalkiisu waxa uu yahay Soomaalidu way ka dheregsan tahay nin shar inuu yahay baa loo yaqaanaa oo wax khayr lahayn xaaladda lagu jiro haddii loo soo laabto bay iyo bakool ama koonfur galbeed anu waxaan aaminsanahay Shariif Xasan wuu ka adag yahay mana bedeli karaan waa un dhib iyo rafaad ay isgelinayaan hadda qoladaan wax abaabulayse xildhibaanadooda labada golo oo xildhibaanada iyo odayaashoodii ayagu hadday isu tagaan ma bedeli karaan anu waxaan la ku soo ururinayaa war ninkani waa dhib socda ee haddaydan bedeli karin haddaad intaad bedeshaan aydan siyaasadda ka celin karin Soomaalida ha ku dhibaataynina haddaad meesha ka tuurtaan wuxuu ku ordahayaa federaalku ku ordiyo oo uu isku dayayaa inuu balaayo iyo jinni uga shaqeeyo oo uu ka tuurto muxuu ahaa midka meesha haysto oo ka kale uu dabagediyo oo golaha baarlamaanka uu tartamo oo dhib unbaa laga dheefi haddaydan dadka ka celin karin koonfur galbeeday oo siyaasadda Soomaaliya aydan ka hor istaagi karin oo halkaa markaad ka celisaan baarlamaanka aydan ka celin karin dadka ha ku sumaynina ee ka daaya anigu awoodda idinkuma ogi intaa isaga liidar ahaa laga soo bilaabo maalintii 2004 ilaa maanta far uusan u qorin muxuu ahaa koonfur galbeed uma qorno bay iyo bakool uma qornay far uusan u qorin haddii awoodi jirtay wax jiraan way soo bixi lahaayeen anu waxaan dhihi lahaa haddaydan baawirkaas lahayn koonfur galbeedna ha ku dhibaataynina oo maamulka haddii la isku qaqabsado la iscayrsado intii la dhibaateeyo oo meeshii laga dhaqaaqi lahaa dib looga noqdo haddana ninkii la kari waayo meeshii lagu soo noqdo waa un dhib weeye jujub meeshaadi joog war nimankiinaan waxbaan ridaynaa lahow haddaad is og tihiin ood Shariif dhaqaajin kartaan Shariif Xasan in la dhaqaajiyo siyaasadana laga saaro waa dawada Soomaaliya waxaan isleeyahay haddaad arrintaas samaysaan ood ka celisaan siyaasadda kalena laga celiyo Soomaaliya waxay noqonaysaa dawlad rasmi ah weeye waxaan aaminsanahay dawladnimada Soomaaliya uu hortaagan yahay waxaana weeyaan leeyahay anigu waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waa cadowga dawladda Soomaaliyeed waa madax banaanida ayuu wuxuu ku yahay malakumadu ku yahay Soomaaliya anigu saan aaminsanahay waa shar ma ogiyo khayr baan lahayn weeye waa ugaas anshaxana isla dhowrno sameeyo haddaydan awood leeyihiin dadka ku dhimanay wixii saxa cayrsaday ilaahay u daayay ilaahay intuu ka soo gaarayo insha Allah ta'ala waa ugaas maxamuud oo kugu soo noqonaya xildhibaan Xasan Balaag waana maqashaa Xasan Balaag kuma jiro waa tahay waan ku soo celinaynaa xildhibaan Xasan Balaag haye wasiir Cabdiqaadir horta aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa ra'yiga saliimka ah oo maanta la isku weydaarsanaya xaqiiqada kulley horta dadka in laga hadlaaroon ilaa hadda waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta igu jirto iyo abwaankeena weyn iyaadan fahmaya haddaan soo gudagalo su-aasha iyo ilaahay kulley wuxuu ku cadeeyey qur-aanka taa waa mid taallo meeshaas Soomaaliya hadduu dhib ku yahay Shariif Xasan ama uu aqabad yahay koonfur galbeedna ay bedeli karin ay waxna yeeli karin hadday bedelaanna Soomaaliya kusoo tuurteen Soomaaliya dhibteen asaga ma ajnabiya Soomaaliya sooma dhalan maaha sunni muwaadin maaha nin siyaasi Soomaa waxaan aaminsanahay nin aanan hubaysnayn inuu Soomaaliya waxba ka noqon karin nin aan dhishii ka ridin oo xabad ridin inuu Soomaaliya waxba ka noqon karin nin siyaasi ah ganacsado ahaa maanta u taagan wixii xaq koonfur galbeed ay leedahay la leeyahay haddii ninkaas koonfur galbeed uu joogo Soomaaliya ay xal u tahay haddii la soo diro xaq uu sameynaya sharcinkii wada horta Allah ku celsho taasaan aniga leeyahay laakiin Shariif Xasan waa nin muwaadin ah Soomaaliyeed haliyey ah saan aaminsanahay waqtigii Cabdullaahi ilaahay hadda wuxuu diidanayna wax la ogyahay ahayd beelaha hubaysan dadka hubaysan dadka dhibka ku haayo
ayaa caqabad ku ahaa dadkaas buu diidanaa nin huwaysan ma ahayn nin weligiis wax dilay maaha nin wax sameeyey maaha ilaaha nigu dheershay dadkii wax laayay wax dilay adeeradeen abtiyaasheenii laayay ayaa xildhibaanada ku jiro federaalka ku jiro oo aqalka sare shariif xasan waxaa la leeyahay waa shar taas waxaan u arkaa nin aanan hubaysnayn madfac wadanin hub wadanin dad dilaynin dad laynaynin inuu shar yahay waa nin siyaasi ah u taagan koonfur galbeed kama dhicin nin isku soo sharxa waktigii talyaaniga ilaa iyo hadeertaan hami madaxweyne yeesho oo u dhashay deegaankan koonfur galbeed waa ninkii keliyaha ugu horreeyay usoo istaagay weligiisna wuu usoo taagnaanaya hadduu ilaahay idmane ma noqonayso sida ay aaminsan yihiin dadka qaarkood soomaali xalkeeda waxay ku noqonaysaa shariif xasan in uu siyaasadda taagnaado oo xaqiiqdana ka hadlo waa nin rashad badan waa nin daacad ah waa nin u taagantaan aniga aaminsanahay ilaahay ahaantayda deegaankaana waa ninka keliya oo haliyaya u taagan oo ugu talagalsan in ay soomaalida mid noqoto nin walba uu xaqiisa helo madaafiic aanan lagu noqonin hubna aan lagu noqonin awood lagu helin ama siyaasad lagu helin nin weligiisa hala cadeeyo haddii hal hoobiye ku riday hal hoobiye degmaaduu ku riday ama shabsuu ku riday hala cadeeyo dadkii hoobiyaashii ridayay dhibaatada kaysanayay siyaasiyiintii ay ku jiraan isagana waxaa laleeyahay waa caqabad taas waxaan u arkaa qabyaalad iyo waxaan u arkaa faquuq waxaan u arkaa wax la qaadan karo oo la yeeli karo oo medii laga dooyo siyaasada soo istaagan aanan ahayn taas waa ta waa caqabad wax aan laga qaadan karo maaha siyaasiyiinteena looma deysan karo gas taasna waa gas raalidoonteedana kulley ilaahayna waxaadka xaggiisa hala weydiisto waa ta wasiir cabdiqaadir oo kugu soo noqonaya xildhibaan cali xasan dhibaatada deegaanada koonfur galbeed ka jirta waad u jeedaa xalma waxaad moodeen in aad siyaasad iminka aad ku karkarisaan deegaanada iyadoo dad badan ay dhibaato abaareed haysato dhibaato amni ay haysato intaasoo dhanna adinka aad mas-uul ka tihiin oo shacabka aad u mateshaan maamulka koonfur galbeed adeer waa maasida horta waxaan rabaa inaan u jawaabo ninka odaga aad baa hadlahay asagaa isduqeeye mar wuxuu ku leeyahay dadka maaragtay mooshinka ku wado ama waxaan ku wado ha iska daayaan ani waxaan ku aqaanaa dad aan wax jari karin waa aflagaado wey taas meel buu nooga dhacay taas waa qodob dhinaca kalena wuxuu leeyahay shariifka haddaan nagu soo sii deynaya anagu nagu soo baxsanaya taasna waxaan kalehay wuu biiqay wuu cabsaday ma garata shariif xasan waa nin soomaaliya oo deegaanadaanu dhashay waa madaxweynaha koonfur galbeed haddii khaladaad uu ka galay ummadda waa laga qabanaya waa laga saaraya wax dhibaataa kalena ma jiraan meesha ma garata marka asaga ninkaas asagaa isdukay taas waa taas ta kale su-aashaad weydiisa haddaan usoo noqdo adeer caawa nin baa dhinta isla markaasna nin kalaa wax guursanaayo wax dhalaayo meeshan marka dagaal ma yaallo dagaalka soomaaliya dagaalka sokeeye 90 ilaa hadduu soo bilowday waa socdaa waxaa jira cadow kaloo fara badan baa jira cadow dibadda iyo mid gudaha jira waxyaabahaasoo dhan waa ognahay hadda doorashada ugu dambeysay ee dawladda dhexe doorasho gabdalaa la qabtay cadow ay sheegay waa joogay sooma ma taasaan ka duwanna annaga kama duwanin adeer waa shaksi waxa laga hadlaayo dawlad dumaysana meeshaan ma jirto waxaa ingiriisi lagu leeyahay replacement baa waxbaa laga bedelaa qof kalaa meesha galaayo waxa kaloo yaalla maxay tahay waxaa jira saddexdii dhardhaar waa yaallaan maxkamadii sare waa taalla golihii wasiirada waa dhisan yihiin baarlamaankii waa dhisan yahay gacmihii dawladda waa jiraan boliis ha noqdo militarikii ciidanka oo dawladda dhexaa jooga daraawiishtii joogta cid walbaa joogta dhibaatada jirto kale maxay tahay war ninkan ma maamuli kara meesha hadii layidhi ha iska soo nasto siyaasadda ha ka soo nasto hadduu isa soo bedelo asiga utallaa doorasho danba asoo gala laakiin annaga hadda baarlamaana nahay aan xaq u leenahay wixii khaldan inaan bedelno wixii saxana aan taageerno waxaana ku shaqeynaa bulshada ku shaqeynaa sideenaba marka aniga dadka say u fikirayaan maba garanayaba ninka laga waayo xuquuqdii militariga laga waayey oo ciidanka bishaar lama siiyo annaga xildhibaanaa kula hadlayna bishaar ma qaadano bishaarkeenu waxa dhan waxaa hortaaga waa inta shabeellada hoose dhibaatada ka socoto waxaa u diiday 18 degmo ay saddexda gobol 8 degmo ee shabeellada hoose ciidan waxaa loogu talagalay daraawiisha in la qoro oo 300 oo 2400 wuu hor istaagay asiga waa ninka hor istaagay in ciidankaas loo dhiso oo hub la siiyo oo maaragta waxa cadowgooda iskaga dhiciya wuu hor istaagay wuxuu ahaa jinkan afgooy ilaa baydhabo baabuurta lagu mari karto waa jidheerayaal
isbaaraa taalla meesha la yidhaha afgoo iyo eriad waxaa laga qaataa canshuuraa sharci ahayn oo dad jaabkooda ku dhaca banki dhaxa lama samayn gudoomiyii bankiga lama saynin madaxweyne ku-xigeenaa laga sugaa madaxweyne ku-xigeen lama samayn golo wasiiru iska dhistay waa sharci daro waa la tashi qolo dastuuriyaa la jebiyey wasiiru dawlana oguma jiro dastuurka wasiiru dawlu sameeyey kootada gabdhaha 20% iyo dastuurka kuley wasiirada markuu siiyey 5 xubnooduu siiyey 10 xaq u lahay waxaasoo dhan dhacay xuquuqdii iyo waajibaadka la duwan waaye ha iska socdo sidiisaa ku daaya macquul ma annaga dhaaraan marnay dastuurka waxaa noogu qoran qodobka 7 waa igu wallahay waa igu billahay waa igu tallahay inaan dalkii u noqonayo daacad aana ilaalinayo shuruudii dastuurka haddii wixii aan u dhaarta lagu tuganayo aniga afkaan hirnaa miya marka nama qabato adeer annaga isbedelkaan rabna waa saas ninkii kaloo hadday dal gaara ku haysto oo madaxweynaha dal gaara ku haysto taas waa goni oo ilaahay aan ka cabsanayn dhaartii umar aan ka cabsanayn ummadda aan u danqanayn dalka aan u danqanayn dadkaan u danqanayn asaga u taala kaas laakiin annaga waxaan ku adkaysanaynaa isbedel doonaan nahay haddii hadda abdihii maysis waaye codkaasaa lagu kala baxaya ma garat waa tahay xildhibaan xasan balaag haye codkaasaa lagu kala baxaya waa tahay xildhibaan xasan balaag haye waa xildhibaan dalaxa waa ku siinaya xasan balaag waadna maqashaa si fiican walaalkay si fiican waa ku maqlaa mas-uuliyiinta dadka igula jirta oo dalxa ugu sareeyo oo raggaas kasoo jeedo aadan u salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu xildhibaanka iyo xildhibaanada kaleba xildhibaan dalxa khaasatan waa xildhibaan igu weyn waxay ahayd qalandaarka oo aniga aan ku taaganahay iska leeyahay xildhibaan si gaar aan ku salaama marka ugu horeyso ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu jimco wanaagsan aadaad umahadsan tahay waa maqlahayay sida ay dooda u dhaceysay xaqiiqatan meesha dhibaatada ay ka taal waxay tahay adiga qofka bani aadanka waxaa fiican inuu yidhaahdo isbedel doonaan ahay waxbaan toosina laakiin isbedel doonaa tihin ayaa meesha ku jirta ciwaanka meesha yaalaa kaasi isbedel doon ayaa tihin meesha taalame aan nahay maaha waxaa ula jeeda marka koonfur galbeed waxba kama haleysna dhibna kama taagna haddii cid la doortay qofaa la doortay madaxweynea la doortay hadday xukuumad leedahay xukuumad ay leedahay hadday baarlamaan leedahay baarlamaan ay leedahay sida maamul goboleedada kale ay xukuumad iyo maxay maamul goboleed xildhibaane iyo system ay uleeyihiin ay uleeyihiin war in mooshin la keena cid diidan male laakiin maxaa weedha iyo weedha iyo sacda naas adag maxaa sumiye waaye maxaa hadda isku keenay su-aasha meesha taala taasa haye ali waa ku maqlaa xildhibaane halo waa ku maqlaa hore u soco xildhibaan balaag waa ku maqlaa marka xaqiiqada jirtaa waxay tahay annaga xildhibaan ahaan koonfur galbeed markhaati meel dheer ma joogtay dhegtiisay saaran tahay teleefon aan ku hadlayo dalxaa markhaati ka ah kuwa hadda halo socdaa jooga dadka kale ku jira marka siyaasadda in waxaa fiican sida ay tahay loo fahmo haddii shariif xasan la dhaliilay oo wax laga dhaliilay oo systemkiis wax laga dhaliilay waxaan rabnaa ninkii dhihi lahaa ama qofkii dhihi lahaa inuu banaanka soo istaago shariif xasan waxba u xureyn waaya lagu dadka badanaa ku andacoonayan dadka hadda isbeldel doona aan lahay leh tuuladii oo xureyn waayo shariif xasan anaa tegaayo cid tiraad waa la-nahay haddii xildhibaanka wuxuu hadda ka dhawaajinaya xildhibaanada mashaar ma qaataan horta meesha aan usaxee mashaar ma qaata xildhibaan gunow qaataa gunidiisana markii la helaa la dhiibaa federaalka qaarkood waysiyihin oo dalxo kow ka yahay dadka hadda qadka ku jira gunada marka la helana waa la bixiyaa markii la waayana waa la sugaa haddii dawladdan ay duntana dawladda kale ee bedesho ayaa leh maxay ahda xaquuqda iyo gunooyinka ka maqanaa baarlamaanka inay bixiso laakiin in nin mas-uula ummadan u dhaartay leh intaanoo dhaara maraayo waddanan u dhaartay leh inuu la soo istaago idaacadda mashaar ma qaadan inuu la soo istaago maqaayad kama shaqeeyo anoona gaf ka wadin waxaan rabnaa in bahasha horta siday tahay loo fahmo aadaad umahadsan tahay waa tahay xildhibaan dalxa maxaa kaaga baxaya isjijiidkan ka taagan koonfur galbeed adigoo sheegay in ay dhibaatada siyaasadeeda taagan aysan xal u ahayn bulshada waa kula socdaa xildhibaan dalxa hore u soco jamaale waa kula socdaa hore u soco
runtii waa dhegaysanaynaa saraxatan ayagoo aada u wada mahadsan runtii xildhibaanada runtii koonfur galbeed ragga hadda balaaga ugu dambeeyay hadlayay wasiirka maaragtay sidoo kale amniga mudane cabdiqaadir ugaaska maaragtay saaxiibkayga ustaad weli sidoo kale waan maqlayay walaalkeena cali xasan isagana ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed ee baydhabo joogo aniga aragtida aan dhexdhigayo runtii nimanka walaalahayga ah ma aha maanta waxa taagan guud ahaan soomaaliya oo dhan maanta markii laga hadlaayo dhibaatooyinka bisha laga saaraa madaxweyne farmaajo oo ilaan asagaa yidhi maanta u istaagay soomaaliya madaxweynaheedii ayaan doonayaa inaan noqdo soomaaliyana meel kasta oo dhib ka jiro haddii la yidhaahdo wixii ka xumaaday annagoo og duruufta iyo xilliga uu wax noqday iyo waktiga mas-uuliyad uu qaaday ee soomaaliya ugu dhaaftay haddaan isku cabirno nin maanta wax ka qaban karo afgooya ugu sokaysa ay tahay xaaladda asiga uu qabanayay xilka haddii aan la soo istaagno adaa madaxweyne danta u dhaartay maalin walba anigaan idhaahdo maxaan afgooya uga soo adeegan la'ahay waxa waaye culeyskeeda anoo markaasi xaaladda waddankayga iyo dhibaatada jirta iyo tan qaran ahaan sokow iyo midda caalamka iyo wax badan ee siyaasadda markaan xeerino aan guud ahaan waxa soomaaliya haysta aan ognahay iyo ku talagalka inay dalkanba uusan degin ee ayaga falsafad fara badan ee loo qayiilay in waddankan lagu burburiyey aan ognahay sida wasiirkaba uu sheegayay maalintii aan dawladdii xoogga lahayd ee aan daaqada ka saarnay annagoonan ka fiirsanin wixii dhibaato naga soo gaaray aan weli la ildarannahay weli haddana in aanu mar weliba isbeddelka si fudud ninkii mas-uul ahaba inaan idhaahdo tag inay nin kasta oo dhibaatadaasi maanta taabatay inaysan u cuntami karin qof waliba uu og yahay maxaa yeelay nin walba meel buu wax soo gaarsiinayaa ninkii ku-xigaa laga rabaa inuu ka sii wado meesha ay taagnayd maalintan annaga cabdillaahi yuusuf madaxweyne uu soo bilaabay ama cabdiqaasim lasoo caleema saaray ama xataa cali mahdi ka soo bilow maalinba weji bay soomaaliya soo taagnayd maantana madaxweyne farmaajo joogo maamul goboleedyadana kama duwana hadba sidaas oo kale baydhabo oo ay saldhigi weyday oo wax loo doorto iyo nin wax looga dhigabo iyo si kaleba un iyaga ka bixi waayey dagaal dhexdooda haddana markii ayaga ay waxay ayaga isku waafaqsan yihiin ayaga ay samaysteen almiino jiritaan baa meesha almiino usoo baxay oo koonfur galbeed la dhihi karo maamulada kale maamul lamida ayagan ay leeyihin intaasba waa guul oo ilaahay lagu mahadiyo ay tahay inay yeeshaan matalaad dadka maanta ku abtirsada gobolada maanta koonfur galbeed haddana haddii ay noqoto sidii uu tilmaamayba maartay wasiirka shariif xasan habaxo aan bedel loo haynin waxa lagu bedelayo shaksi maaha dadku waxay u qaadanayaan cali iyo cabdi isku bedel ama caasho iyo cambara isku bedel inuu isbedel yahay ma isbedel waxaa la doonayaa waxa markaasi taagan nin awood u yeelan karo ama capability isaga markaa inuu keeno wax ka duwan aniga shabeellaha hoosaan ahay yaa guarantee isiinaya shariif xasan hadduu baxo inuu afgooyo ilaa iyo baraawe aniga hal maalin noogu xoraynayo oo keenayo awood oo keeni waayo shariif xasan ma heli karaa caawa nin usoo istaagi karo aan dhihi karo waxaan ogahay waxa shabeellaha hoose ay ku maqan tahay in awood shariif xasan ayaan ahayn awood madaxweyne farmaajona ayaan ahayn awood maaragtay dad aan ku dhaliilana aan nahay soomaali gudaheeda wax ka taagan ee iyada ay isu diidan tahay inay ayada ay dhexdooda ay ka heshiiyaan oo dawladnimo iyo dadnimo gobolka badan soomaaliya oo dhan inuu wax taro in haddana lagu heshiin waayo ee soomaali ay isku haysato oo shisheeye ku dhex jiro oo maalin walba ayaga uu dhahayo kuwaanaan kala qabanaya oo qaarna maaragtay ku faraxsan qaarna maaragtay ku maaragtay runtii dhaliilayo oo maalin walba maaragtay askarigii la geeyo askari kale ku dabafeeshan kii mas-uul looga dhigo mid kale ku dabafeeshan hal gobol ayaan annaga aanan sal la'nahay hal degmo ayaan annaga heli la'nahay fursad oo degmada afgooyaan ka soo jeedaa iyo walaweyn labadaa inta u dhexayso ayaan u socon lahay ayaan dadkaygii ugu jeclaa ee aniga in aan dhex tago oo aan maalin si xorayaan la ahay oo ceelasha biyaha aan u dhaafi karin maxaa marka maanta aniga aan wax aan sheegi karo aan ku hadlaya dadkaygana waxay yidhahdaan xildhibaan baad noo tahay maxaad annaga noogu fadhida haddaanan annaga aanan heli karin inaan xamar ka soo adeegano marka waxa waaye nin walba inuu eedayo horta waa laga fiican yahay
in loo fakero si collective responsibility mas-uuliyad wadareed war waxaana haysta seen ooga baxnaa dhibka annaga eena laazimay seen ooga gudubnaa soomaaliyaan wax la qaybsanaynaa meel weliba waa ka taalaa dawladda soomaaliyeed hadda waxay fishir kula jirtaa xildhibaanadii maaragtay ee galmudug oo ayaga isku kacsan yihiin dhexdooda iyo madaxweynihii hore ee mudane xaas anaa madaxweynaha ima tihid imisay qaadanaysaa hadda haddii ay bilaabato hal sana u dhiman shariif xasan waa tahay ima tihid ima been baad sheegtay hadda xildhibaanadii waay waxaa hadlayo deegaankay wax leeyihiin in kale intaas in kasii badan waa shariif xasan taageersan in kale haddii in kale ay diidan tahay imisaa murankaasi inta lagu jiro hal sana dhammaanaysa haddiiba lagu dhameeyo beri ninkii wax dooran lahayo ninkii kale maalinta xataa ay wax la dooranayo waan ognahay shariif xasan xildhibaano ma dooranin odayaal baa lagu doortay oo waxay ku doorteen maaragtay qaab oo maxaa la dhihi jiray balanary ah ma garatay xataa shuruucda marka hore ayaa la iska fiiriyaa ayaa la adkeeyaa haddii adiga wax samaysanaysid laftirkeeda ayaa waxaa fiican wax iswato oo systematic ah oo aad beri aad ku doodi kartid inaad igsatid oo aad marjac ka dhigatid oo reference oo adig aad soo qaadatid annaga hadda markaan qodobeynayno aan idhaahdo madaxweyne farmaajo waxaan u haynaa qodob saas iyo saas iyo saas 190 intaasaa ridayso kan iyo kan marka annaga aan samaysanin ka hor ayaa isaga madaxweyne intuusan imaan ayaa yiilay qodobkaas laakiin kan hadda haddii la sameeyo shariif xasan bacdow ayaa la sameeyay isagoo madaxweynaha maana shariif xasan waxaan ognahay inay ku doorteen walaalaheena koonfur galbeed odayaal dhaqameedyo iyo la isu tegay oo balanary oo xildhibaano ma aynan ahayn imaba aynan dooranin idinkasay gurida kartaan hadduu lasoo istaaga xataa fiiro helaya maanta ma garatay marka si kastaba ha ahaatee annaga arrimaha yaanan noqonin wax nin walba uu ka faa'iidaysan karo oo danta guud ee lumin karo ha laga fikero shariif xasan qof waaye waa dhiman karaa waa la bedeli karaa hal sana u dhiman wax weliba ha laga fikiro badbaadada dadka ee maanta gobolkan ee maaragtay ee asaga ee runtii dhibaatada ee joogtada baydhabo ninkii garanayo waa garanaya magaaladii geerida loo bixiyey madiinat almawt ma garatay yacni dadkaaga xusuuso oo wadar maanta xabaalo wadareeda laga helaya haddii baydhabo la baara la yidhahdo dadka ku aasan maxay u dhinteen maxaa loo baabiyey maxay qaarkood wax abaar dishay wax colaad dishay dadkaas maalin walba marka ummadaas inay kasoo qaxaan oo baydhabo lugta ay kasoo bilaabeen nin u naxariisanayo male waa dadka ugu dhiban dadkooda dhaqaale xumo iyo mashaakil iyo horumar la-aan ee ayaga ee dilootay marka aniga waxaan qabaa walaalayaal arrimuhu in la dejiyo luqadda lagu wada hadlayo inay noqoto luqad layin ah ugaaska asigoo saaxiibkayga nin culimana aan ogahay ugaasow adigana deji wax kasta soomaaliya waxa waaye nin walba waxa waaye meeshii asiga ay maaragtay meel bay ka madowdahay nin walba qofka kale hadduu khaldan yahay xataa sidii ay ku habbooneyd waxa loogu sheego waxaa ilaahay subxaanahu watacaala fircoon baa markii asaga dadka u dirayay maaragtay nabi haaruun iyo walaalkiisa faqula lahu qawlan layinan ayaa la yidhi ku dhaha luqad wanaagsan oo jilicsan kula hadla lacalahu yatadakar oo yaksha waa intaas oo wax xusuustaa oo ilaahay ugu soo noqdaa haddii qofkan horey loo sii didiyo oo la caraggeliyey oo luqad adag lagula hadlo oo wax weliba la yidhaahdo dad buu leeyahay isagana shaksi waaye waxuu ka jawaabaya dad adigana intaa ka daran ee wax kasii xun ee iyagana afkooda iyagana ku ballaariyo ayaa soo baxaya waxaasoo dhanna waxay saameyn ku yeelanaysaa wadajirka dadka soomaaliyeed iyo in niyad sami maaragtay lagu wada joogo oo lagu wada xiriiro khalad waa jiraa dawladda dhex uu ka jiraa maamul goboleedyada uu ka jiraa min heer tuulo ayaa soo taagan meel aanan dhibaato dad soomaaliyeed ee joogaan oo aan cabasho iyo gocasho jirin male waxaasoo dhan meesha dhooqa midba marmar baa loo bixinayaa aan helno dawlad cagaheeda ku taagan oo soomaali oo pure ah oo saafi ah oo xisaabtami karto wax isu sheegi karto hadda nin walba meesha uu joogo ha isku badbaadiyo maaxaka jildaka midla dafarika ay carab tiraahdaa jirkaaga ma kugu xoqaayo cidiyadaada si aanan kugu xoqin inta kale waa isku wada mid laakiin xanuunka dadka taaftay ayaan nahay ee joogto ku noqday gobolka aan ka soo jeedo dhibaatadiisa iyo mushkiladiisa soomaali baa iskale cid aan ku eedaynayna mal ajirnabi naguma soo duunin cid kale maanta nama soo dhexgelin waxa anaga aan ka noolaan la'nahay waa soomaali dhexdeeda isqabsigeeda iyo wax isu ogolaansho la-aanteeda iyo wax isu guurid la-aanteeda marka dadka soomaaliyeed ee walaalaha ay weliba si gaara wax uga dhexeeyaan af walaal iyo wadajir ee wax u taraya iyaga dantooda guud ah ku jirto ha la iskugu yimaado sida hadda baarlamaanka ee xildhibaanada ay ku showreen ee ku shireen ee kula hadleen madaxweyne shariifne wafdiga idin imaan doono oo factifying machine ahne waa walaalihiina soo dhaweeya ha loo wada hadlo si ilbaxnimo ku jirto oo dalka iyo dadka iyo diinta guud ahaan soomaalina faa'iido u leh koonfur galbeedna maartay dan ugu jirto intaasna hadday waana iga tahay wax sheeg iga tahay waa tahay xildhibaan dalxa kugu soo noqonaya ugaas soo koob
waxaad tidhi madaxweyne shariif xasan haddii aad talada ka tuurtaan koonfur galbeed soomaaliya oo dhan uu saameyna waa sida hadalkaad u dhigtay ma waxaad leedahay haddii aad wax ka tabanaysaan xitaa shariif xasan koonfur galbeed iska jooga miyaad leedahay xildhibaan dalxa waa kugu soo noqonaya ugaas maxamed weli ayaan ula jeedaa ugaas haye codkaaga waa iga maqan yahay bismillah anigu horta niyow dadka inta badan soomaalidu waxay u badan yihiin dad munaafaqadeeya oo wax iska daba wareejiya waxaana la rabaa xaqiiqda in laga hadlo lamana rabo waxba waa la qaban waayey mar haddaan waxba laba qaban karin nin baa meeshii fadhiya ee ha loo daayo ummad baa meesha joogta ummadda joogta waxay u baahan tahay in ay hesho nolosha ay ku jirto nolol ka wanaagsan amniga ay haysato mid ka wanaagsan cadaaladda mid wanaagsan dhaqaalaha mid wanaagsan haddii la heli waayo oo la waayo oo uu keeni waayo asaga meesha looma qorin oo kitaabna uma qorin oo uguma yaalo looma maxfuudka dhaxalna aabihiisna kuma uusan helin waa inuu ka wareego oo ummaddii hadday kacday nimanka hadlahayo hadda qaylinaya waa xildhibaanadiisii weeye waxaa xildhibaanada loo sameeyey wixii khalada inay ka qabtaan qofkay afgaran waayaan inay soo fariisiyaan qofkii soo fariisin waayey inay tuuraan oo irmooshin ka keenaan ma ay khaldano oo khalad kuma jiraan midda kale dadku way is yaqaanaan waa la is akriyaa soomaalida waa la yaqaanaa maanta madaxda ku jirta waxa weeye waa ninka siyaasiga oo soomaaliga ah waxaa la yidhaahdaa waa wiil mudug jooga weeye wiil jooga weeye waxaa la yidhi 20 jir mudug jooga ilaahay uma ceeb qarinin ninkii 4 sano ku jira shariif wuxuu ku jiraa 2004 ilaa maanta dhex taagan yahay waa la yaqaanaa waxaa la yaqaanaa hadalkiisa la garanayaa shaqadiisa la garanayaa wadaniyadiisa la yaqaanaa amnigiisa ammaankiisa la yaqaanaa muwaadinimadiisa la yaqaanaa waa la wada garanayaa maanta waxa uu yahay waa wax la garanayo weeye wax la garanayo weeye maanta aqoonta loo leeyahay kuma anfaco soomaali iska dhaaf koonfur galbeed iska dhaaf gobolka bakool kuma anfaco weeye qofkana waxa weeye meesha la yidhaha bay iyo bakool iyo gedi iyo bu-aali iyo kismaayana waa isla mid ummaddu waa hal qoys weeye ummaddu garbaharey ninka fadhiyaay ummadda hadduu kharibayo nin socod xun hadduu yahay nin shisheeye kalkaale hadduu yahay nin cadaalad daran hadduu yahay nin musuq maasuqa hadduu yahay nin muxuu ahaa khayr beele ah hadduu yahay qof kasta oo soomaaliya ugu dhibaya ninkaas waa sidaas weeye dhibka la gaarsiiyo ninka baydhabo ku nool iyo ninka marka ku nool iyo ninka tayeeglow ku nool iyo ninka ku nool waajid ku nool dhammaan ummadda soomaaliyeed buu saamaynaya oo meesheeda ku wada gaaraya sidaa darteed anigu uma aaminsani meligi waa nin khayr le ninkaa waan aqaanaa weliba saaxiibbaan nahay aniga macriifo fiican baanu isu leenahay oo muddo adag oo weliba kharaar aanu isla soo marnay waxaa weeye ninkaas nin muwaadina ma aha baa la dhihi karaa hataa markii la fiiriyo waa nin shisheeye kalkaal ah waa nin sidiisuba inuu wax kharshiba ma ogiye asaga dantiisa inuu raadsado ma ogiye qaran buuna aqoonin ummad buuna aqoonin muwaadiniin buunan aqoonin qof ilaali buuna inuu kugu guurayo buunda kugu marayo ma ogiye ninka uu heshiiska leeyahay waa ninuu buunda ku marayo kor saaran yahay wey wax saaq u sameeya ma jiro dadka noocaas oo kale ana waa dadka la rabo soomaaliya in laga qabto siyaasadda soomaaliya in laga saaro siyaasadda soomaaliya in laga fogeeyo ummadda soomaaliyeed ma guulaysanayso dadka gabraaratada ilaa ay siyaasadda ka saaraan oo iska cayriyaan oo meel iska dhigaan ummadda soomaaliyeed ma guulaysanayso anigu asaga keligiiba maaha qof kasta oo noocaasa oo aan lahayn wadaniyad aan lahayn oo aan lahayn garasho wanaagsan aan lahayn oo naxariis aan lahayn oo ummad u naxaynin oo shisheeye kalkaal ah waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed masiirkeeda ha laga dheereeyo ummadda soomaaliyeed masiirkeeda ha laga dheereeyo aniga waxaan ogsoonahay meeshaa markii haddii laga cayriyo oo nimankaasiba awoodaan inay cayriyaan ma aaminsan inay kari karaan oo ilaa 2004 bay isbaafin lahayn hadday awoodaan hadday kari karaanba wuxuu ku soo ordi doonaa federaalku dhibaateyn ha dhibaateeya isin soo dhaafiya idinkuba haddaad kartaan dadka kale way iska celinayaane bal idinku inaad awood leedihiin na tusa maanta inaad maanta awood leedihiin oo sariif ridi kartaan soomaali tusa haddaad regtiin maanta taasaan idin leeyahay anigu waa ka baxay xildhibaan cali cismaan haye aad uma santahay jimcaale kuma maqlo aniga waa xildhibaan xasan bilaad marka ugu horeyso waxaan rabaa in si saraaxa loo hadlo haddii
inta meel ummadan kaa maqlaysa aada soo fadhiisato markaad soo fadhiisatana sidii kuwa fadhiku dirirka u hadashana waa laga roon yahay anigu ma aqaano ninka suldaan la leeyahay hadda qadka ku jiro hebel ma dhihi kari magaciisa un baan maqlay wuxuu leeyahay asligaado intii bani aadan loo celin karay ayuu wuxuu u celiyey nin mas-uula madaxa ummaday soo dooratay adiga haddii aan shaksi ahaan kula hadlo ma waxyaa kugu soo dega markaad leedahay waa sharwade yaa kuu sheeg inuu sharwado yahay ma aayadaa kugu soo degtay ma rasuuladii ugu dambeeyey ilaahay adduunka usoo dirayaa tahay waa horta waxaad fiicnan lahayd in intaadan qof bani aadana aadan cambaarayn aadan miisaamin aadan wax ku sheegin aadan shartiisa iyo xumaantiisa inantaadan sheegin adiga waxa kaa guuxay inaad sheegtid waxaan aaminsanahay shisheeye kalkaalka ugu shisheeye kalkaalsan ee dunyada ku nool ee soomaali gudaheeda jooga ee soomaali hilibkeeda inta soo gogooya barna u koriya barna geedaha ku saloola inaad idinkow ka tahay marka waxaa sharaf kugu jirto inaadan ummadda horteeda noocaan oo kale la soo hor istaagin waxaan qirayaa dadnimo kuguma jirto xaniiye ma lihid ma soo noogin sariif xasan inta hortimaadid aray ma dhihi kartid laakiin waxaan ogahay 33 jeed iyo 33 sarood gadaashood intii istaagtay ayaa sariif xasan soo caynaysaa war haddaad dab tahay haddaad wax isku falayso adiga khatarta kugu taal adiga feeri markaad leedahay sariif xasan shay kalkaal waay annaga waxaan aaminsanahay haddii koonfur galbeed magaceeda anoo ku hadlaayo ummadda koonfur galbeed anoo magaceeda u hiilinaayo mansabkeeda u hiilinaya haddii layna yidhaahdo koonfur galbeed ahaan nin mu-aadan ah ama kacbada dad ka tukisiya oo imaam ka noqdo koonfur galbeed ha laga keeno soomaali inteeda kale yani soomaali dubac dhigi karta hadabkooda u dhigi kartaba ma aaminsin aan sariif xasan ahayn sariif xasan waa haldoorka koonfur galbeed waa libaaxa koonfur galbeed waa madaxweynaha koonfur galbeed adiga iyo 90 kalkaal ee afkooda ubalada kulanka ka socoto sideedaba lama hadlo mana la hadli doono mana ridi doonaan aadaad u mahadsanta waa tahay martida waa ka codsanaynaa in anshaxa barnaamijka inala dhowraan xildhibaan cali xasan haye waa ku maqlaa xildhibaan cali xasan waa ku maqlaa adeera marka haddii qayba ninkii la rabo haddaa iska siisa dhibkeeday leedahay haye horta waa ka xumahay inaan markii si fiicanna loo maqlaynin mareega go-ayo waxaan ku sheegay horta aniga cali xasan cusmaana dalxaay ma yaqaana maraynayo dadka khayrkiis waa isbaraayayo aniga degaan doorashada qoryeelaan ka yimid in shabeellada hoose dhasha ma shabeellada hoose oo dhasha ma garatay haye marka waxaan rabaa inaan hal caddeeyo marka laleeyahay siyaad bare markii la eryahay war siyaad bare iyo tana isku kumargareynina hawala simina siyaad bare waxay ahayd jabhado etoobiya soo hubaysay oo kala nooca ayaa dagaal ku qaatay annaga dagaal maaha baarlamaanaa jira nidaamaa jira nidaamaa lagu saaraya jabhadeyn maaha horta taasaan kaalaya baarlamaankana dalxan waa taqaana adigana tarkaaga wayshaduu ku shaqeeya kalamaana waa noqon karaan baarlamaanada annaga waxaan u aragnaa inuu eedaysanan yahay madaxweyneheena soomaa garab taas waa halkan tan kale nabiga xadiiskiisi waa ogeed aakhira saaca haddii qiyaamaha dhaqaaqayo haddaad geed beeraysa markaas beer war ama hal sana ha u dhinaato ama lama beri ha u dhinaato qofka hadduu khaldan yahay waa la qabanaya saacaduu khaldan yahay lagu qabanayo teeda kale waxaa idiin sheegaya annaga mooshinkan hadda ma bilaabanin maxaa isku soo beegaan haddaay maqlaay mooshinkan 2016 16 ah uu dhacay hadda ka hor uu dhacay hadda ka hor la soo bilaabay waxaa loo joojiyey abaartii simana loo joojiyey haddana aan soo kicinay teeda kale waxaan ku sheegaa dalxayow annaga haddii ilaahay ku rooya 2006 aswaalan kula jirnay xildhibaano oo koonfur galbeed u dhashay oo dawladda dhexa nagu masala waa u sheegnay cabashadeena u sheegnay ayadoo qoraalaan u gudbinay kolreer ruushaa ku jiray yacquubaa ku jiray intaasoo saaxiibada a taqaanaa ku dishay waxaasi dadka 21 xildhibaanay ahaayeen waa la heshiinay waxaa la yiri raalli ahaada qiimadiina haddaan kusoo baxnay ma ogeyn hadda kadibna waa artay ma dhici doonta waxdaan ka bedelayna halkaana nala keenay meeda waa nalooga baxay hadda ka hora nalooga baxay saaxiibadii hadda oo meesha ka hadlaayo oo xasan balaagu yahay waa saaxiibka waa nahiri jiray mooshinka waaga hadda waxaa bedelay haddee ma garanayo duruuf kala haysata ka hadli maayo taas aniga marka ilmaada reera waxayaa la isku khaldin
أنا ما بدور من كذا حتى الدعاء طلعوا عن كلام الله وأقوى عدنا وعاتر إرجع صوت دورتي أنا ما بدور الديرة ما يسعسوا الأول منكم هنا هذا أساس ودكتور أبغى عليه ما بدور منه أنا برا ما كان الأول ما هو السماء أنا قاعد ينكاس فقط تعتمد هنا هذيك أنا بوشر كنتني مستمر لنا طلب كقنطرة كبرات تدرس السدحات أو عندكم الشرعات يعني كويسنا يعني الأولية أنت قلوب الجمهور واحد سنة والضرر هذا أنت تعرفه مركز أساس على الفهم يعني السؤال دي سبب أساس هاي أنا جهلوا مني أغنوا حاولنا إلى الدولة والله أنا بخلق حتى كارنا واحد الأهل أبو فيدا صدر إنسان كذا أنشله يعيش ممكن لا برلمان كمقدرنا أقوى هندسي waa tahay dhegaystayaal badanna qadka soo buuxdhaafinayaan waa tahay waa tahay dhegaystayaal badanna qadka soo buuxdhaafinaya ee martida waa ku soo noqonaya markaan qadar yar dalkan ii dadkeen diintan furqaan ii duunyada nool dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye dalkan ii dadkeen diintan furqaan ii duunyada nool dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye dalkeen faylahaw daayinkayna siiyey dabeelis isgooshiye waliinku doorsadaan deebko eleyntiis dhalankoo ka duugun lamba dareeraw daldaladaw dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye dalkan faylahaw daa'inkayna siiyey dabeelis isgooshi waliinku doorsadaan deebko eleyntiis dhalankoo ka duugun lamba dareeraw daldaladaw dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye baddii deenkahayti malaa'ikii deebalaay odowkoo daldalaw dubadaw karsadaw sunkukadeedii dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye baddii deenkahayti malaa'ikii deebalaay odowkoo daldalaw dubadaw karsadaw sunkukadeedii dawliin baanayti waldaneeyo dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye owlaadun daleelo derbegay ii fidaayan daroogoysimiin baaburkii dareera dugoobsadaayan dugsiin baanaye waldaneeyo dugsiin baanaye waldaneeyo dugsiin baanaye dadkeen qulqulaw dalkoo kale nguuraw dareeraw dhammaadeen dugaagga aami dawliin baanaye waldaneeyo dawliin baanaye
dawliin baahnaay dayartaan fiiri degan shokroore meelu dawarsidaaya karaan dareeran dawliin baahnaay wadaneeya dawliin baahnaay wadaneeya dawliin baahnaay waa tahay saaxiibyaal weli barnaamijka maxaa karona wixii la sheegay ayaad dhegaysanaysaan markaan dhegaystayaasha ayaan siinaynaa dhegaystaha ugu horreeya qadka ku jira halow halow walaal magacii degmada jimcaale magacaygu waa cabdiraxiin nur maxamuud oo buuxii ku magac dheer oo wada jirkaa la soo hadlaya waa tahay cabdiraxiin horow gal haddii aad la socoto barnaamijka waad mahadsan tahay jimcaale horta waan la socday barnaamijka xildhibaan dalaxa iyo xildhibaanada kale koonfur galbeed ka soo horjeedo iyo wasiirada dhammaan waan salaamaya horta qodobka la isku haysto waa xilka qaadista ama mooshinka dhanka madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan horta sidaan ognahay shariif xasan sheekh aadan waa shaksi soomaaliyeed waa shaksi ummadda soomaaliyeed ama shacbiyad soomaaliyeed kamid ah dhaliil way imaan kartaa eedeenna way imaan kartaa laakiin marxaladda maanta jirto dalka uu marayo maadaama wadanka dhibaato dhinaca amni xumada ay ka jirto oo haatan madaxweynaha uu ilaamiyo dagaal ka dhan ah cadowga soomaaliyeed ee al-shabaab in si hal dhinac looga soo wada jeesto in mooshinkaasi shalaba waxay u hakiyeen abaar dhacday maantana waa inay u hakiyaan maslaxada ummadda soomaaliyeed si dagaalkaasi madaxweynaha maadaama uu khibrad badan u leeyahay haddana oo kamid ahaa shantii madaxweyne goboleed heshiiska ka gaartay madaxweynaha soomaaliya la qaadatay haddii hadda la yidhahdo waxaa la sameynaya caarqalad ah in bedel amaba la bedelo madaxweynahaas ninkii imaan doona haddana waxay qaadan doontaa in xildhibaanadii ay shiraan madaxweyne soo doortaan madaxweynahaasna lama ogo heshiiskaas inuu dhaqan gelin karo iyo in kale marka iyagoo danaha caamkaa fiirinayo oo aanan fiirinayno danaha gaarka ah inay maanta u istaagaan badbaadinta ummadda soomaaliyeed oo shariif xasan sheekh aadan inay maarkin u daayaan xilkiisa si uu qeyb ugu qaato dhinaca baay iyo bakool ilaa shabeellaha hoose dagaal ka dhici doona ama ka bilaaban doona madaxweynaha soomaaliya ilaamiyey marka waxaan leeyahay candhuuftiina gadaal ha loo laqo idinkoo maslaxada caamka ee ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatadu haysato idinkoo fiirinayo waxaa idinla hadlayno waa shacbiga soomaaliyeed annagoo ka mas-uula inaad xildhibaano aad dibkaas aad dib ula laabataan madaxweynahan aad u dhaaftaan xilkiisa si uu amniga dalka qeyb uu uga qaato iyo dagaaladan la iclaamiyey marka intaasaan dhihi lahaa jimcaalow aad baan umahadsantaha barnaamijkan xildhibaan dhulaxan aad baan u salaamaya waa taa cabdiraxiim waa mahadsantaha qofka xiga halow dhegeystaha kale halow walaal raadiyaas ka gaabi magacaada halow waa tahay dhegeystahaas waa in maqlaya kan xiga halow halow wacalaykum salaam walaal raadiyaas ka gaabi magacii degmada nago waa axmed cusmaan axmed soomaali ku sugan degmada daynila gaaraan xafada barwaaqo aye hore u gal barnaamijka daa la socoto horta aad iyo aad umahadsantihiin bahda shabeelle barnaamijkan aadka aadka u xiisaa badan waa idinkaga mahad celinayaa waxaan rabaa in hal su-aal weydiiyo ninkan wasiirka ah oo madoobe taas oo ah madaxweynaha koonfur galbeed oo lagu magacaabo shariif sakiin inta badan waa maqlay anshaxaan isla dhowrno anshaxa dhegeystayaasha nala dhowraan haye waayahay madaxweynahaas ninka deertan u doodayo oo difaacaya ilaa ninka wadaniga ah ee wax walba qabahayo soomaaliya og ninka aan wax qabayna soomaaliya og ninkaani hadda u doodayo ma wuxuu u doodayaa oo ugu danaaninahayaa in uu wax qabtay mase inuu danihiisa gaarka ah ku fishanayo haddii uu wax qabtay ha caddeeyo waxa uu qabtay oo ha yidhaahdo waxaas iyo waxaas ayuu qabtay madaxweynaha haddii kale anaga waxaan ogahay inuusan wax qaban waxaa ii daliili ah gobolka shabeellada hoose iyo weliba bay qaybo kamid ah ciidanka etoobiya shacab ayuu ku lahayn soomaaliyeed oo kasoo jeeda koonfur galbeed
ilaa hadda kama uusan hadlin asiga maxaa uga hadli la'yahay arrimahaasi shacabka lagu leynayo oo ciidamada Etoobiyaanka ay ku leynayaan goboladaasi maxaa ka aamusiyay su-aashaas iga jawaabay ninka wasiirka idinka waa madsantiin waa tahay wasiir cabdiqaadir waadi maqashaa alaaw cabdiqaadir cabdiraxmaan cali waadi maqashaa wasiir dowlaha amniga koonfur galbeed waxaa inuu maqlay alaaw wasiir cabdiqaadir alaaw wasiir cabdiqaadir mi maqashaa waa tahay inuu ka go-aan filayaa xildhibaan xasan belag waadi maqashaa adigu waa uga cudur daaraynaa dhegeystaha qofka xiga alaaw جمعة على حسن أي حلمان دلحة أنسيو على حسن وحسينية حلمان دلحة هاي على حسن هذانا كبعد السكسة حقي حلمان على حسن وكوسينينا وقت كان نقول على عفوا حلمان دلحة هاي جمعة وما تصنت هاي ماشي هداي صاحبك قوم شغله وسأسلمنا على حسن qoryoolay ka soo jeedo annaga shariif xasan ayaan hadda kahor uu yidhi annaga iyo korneel ruush iyo rag kale cabasho ay ka yihiin waa run maanta cabashadu haddii iyada ay tahay mid waxii jira in laga wada hadlo si joogto ah annaga maalin walbo marmarka qaar marka koonfur galbeed laga yimaado dhibaatooyinka na hor yaalla ee joogtada ka gobol ahaan annaga iyo adiga aan ka soo jeedo ee shabeellaha hoose ayaa waxay noo ahayd ilaa heer markii dambe inaan madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya asiga u yidhaahdo waa kan la hadla maanta madax meel ka saraysa waddanka la salaaxayo ma jirto waagii shariif xasan asaga haddana sidan oo kale madaxweyne sheekh shariif uu u joogayna sheekh shariif aan israacnay oo aan afgooya tagnay oo la socdaan taliyaashii ciidamada oo dhan iyo maaragtay iyo wasiirkii cadaaladda iyo weliba maxkamadii markii dambe ciidamada haddana ku daba xigtay oo la geeyey muungaab afgooye waxaa ku xigay madaxweyne xasan sheekh helicopter baa ku tago haddana isaga iyo macal amisom ninkii haystay iyo isla taliyaashii ciidamada iyo isagii haddana waxaan hortagnay afgooye oo shacbigii afgooye ayaan la hadalnay oo ayagana bareerahooda ay soo gudbisteen markii dambena madaxweyne farmaajo ayaa isagana sidoo kale ayaan intaan iswada raacnay ayaan afgooye aan dhex tagnay ayaa sidoo kale haddana isagoo madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan uu nala socdo isla markaana ay nala socdaan taliyaashii ciidamada iyo hay-adihii muhiimka ah ee markaa dhibaatada taagan loo baahnaa in gobolka wax laga qabto taa marka waxaan u qaadanay inuuna tusaayey awooddii dawladda ugu sarraysay oo dhan ee wixii asaga inta uu ola tago waxaan u dhiibna ee wax ka qaban lahayd inay maanta meel fagaara ah la wada taagan yahay wixii ayaga ay qaban kari lahaayeen hadday qabtaan ee maalinta ayaga afkooda waxay ku yidhaahdaan inay dhegaystaan madaxdii dalka oo taa markaa uuna tusinayey waxa aniga aan qaban waayey meeshii aniga markaa sababta aan u qaban waayey iyo meeshii aniga aan gaarsiiyey wixii ayaga hortaaganay caqabadaasi dawladnimo in looga qanciyo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la soo wareegay isagoo xambaarsan dhammaan cabashadii dadka gobolka ee marka waxa ay qabeen oo aan weliba gabasho lahayn loo sheegay siyaasadaas oo aan sugayno inay hirgasho oo mar walibana annaga aan mutaabaca ku haynay oo maxaa idinka qarsoon oo markaa madaxweynihii koonfur galbeed uu leeyahay haddii aan madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed kii saddexaad maanta aan isla wada marayno annaga intaas oo aan la wada socday wufuudaas oo dhan ee heer madaxweyne ee maanta ay taagnayd arrintu marka waan garan karnaa wax maanta taagan caqabada gobolka shabeellaha hoose jirto adigana waa garan kartaa anagana waa wada garan karnaa ma aha mid si fudud maanta madaxweyne farmaajo wax uu qaban karo ma aha mid si fududda maanta ee madaxweyne maanta xasan magaciisa ee aan idhaahdo shariif xasan wax uu qaban karo caqabadaha jiro marka horta ee ayaga xalkooda la gaaro ayaad la xisaabtami kartaa waxa markaa qofka wuxuu qabtay muxuu qaban waayey sababta uu qaban waayey maxay tahay sac ninkiisii laasayta kaga fadhiya ama adiga derbigaad saaki adiga aad istaba duurkii nin awood u leh inuu dumiyo inuu meesha joogo adiga qofka waxaad ku eedaysaa keligiisa waa wax xoogaa runtii laga fiican yahay meeshaan caqabo guud ayaa jirta oo dalka soomaaliya oo dhanna ee isbaara u taalla cadow fara badan ee noocyo kala duwan leh oo dalkan la doonaynin si guud ahaanna inuu u dego dawladnimo uu hanto qarannimadiisii ula soo noqdo wixiina lagu yaqiinay ee annaga astaan ee aan ku lahayna afrika iyo maaragtay iyo adduunyada inteeda kalene in maantana lagala dirirsan yahay si caam ayaa jirta si gaar ahna gobolada koonfureed marka loo yimaadane inta maanta xudunta u ah ayay ka mid tahay baay iyo bakool iyo maanta iyo shabeellaha hoose
oo koonfur galbeed uu madaxweyne shariif xasan hadda uu ka yahay marku ma aha wax nin keliya hool ay u taalo waa wax soomaaliya oo dhan iyada ay u taalo waa wax dhammaanteena noo wada taalo dawladnimaduna ma aha shaksiga kursiga kan ugu weyn ku fadhiyo ama inta baarlamaanka ku jirto iyo inta la midka ah waa wax loo baahan yahay garashadeeda inay wada yeeshaan dhammaan dalka dadka iska wada leh sabiir iyo kabiir ama rag iyo dumar walaalayaalow annaga marka aan leenahay xilligeedii ma taagna maanta waddanka waxaa la dejiyey istaraatiijiyad amniyeed haddii maanta iyada ay isku mashquuliso koonfur galbeed shariif xasan aan ridaynaa iyo ma ridi kartiin halka sane ee u dhiman dawladda istaraatiijiya tallaabada ay qaadi doonto halkeebay kasoo gelaysaa markii loo baahnaa gobolka inuu hadda qorshihiisi la yimaado oo wuxuu ku horumari lahaa amnigiisa la yimaado wuxuu bulsho loo baahnaa uu la yimaado koonfur galbeed wixii iyaga la rabay siyaasad ahaan inay la yimaadaan la rabay markii ayaga la rabay inay ayaga ay u istaagaan inay la yimaadaan qorshe dhaqan dhaqaale ee waddanka intiisa kale ee la jaan qaadaan haddii ayaga ay isku mashquulaan goormaa dadkii wax loo qabanaa goormaa goboladii ayaga ay u baahnaayeen inay helaan nabad iyo deganaansho iyo horumar ayaga la gaarsiinayaa waxa annaga naga hadalsiinaya waxa waaye xaaladda ma ku habboon tahay xataa haddii ay noqoto xataa in la yidhaahdo qofkaan meesha ma joogi karno marna xaaladda waa inaad qiimaysaa marna waa inaad qiimaysaa wax adiga aad doonaysid waxaana ma artay laaga aragtay laaca ma og tahay bay tiri naanti ama waxa waaye waraabaaga sokale araga maayna saabta ma araga sii la dhihi jira inaysan noqonin waxaan wax badan oo fiiris u baahnaa jiro oo aan shariif xasan indhihiina keliya aynan qabanin ee loo baahan yahay hoos waxyaabaha yaalla ee maanta in laga digtoonaado laga baqaayo ayaa anaga aan tusaalaynaynaa sharci waa sharci waxa aan tilmaamayn marka aan lahaa ergaa dooratay haddii layla yidhaahdo siyaasad waay turubta meeshii la rabo ayaa maanta wada dhigaysaa soomaaliya ciddii doonto annagoo baarlamaan sharci ah ayaa 7 bilood albaabkan la iskugu dhuftay oo wareegsan ugu kala diray madaxweyne xasan sheekh oo madal la samaystay oo shaqada dhan madasha waday ilaa ay ka dhamaato oo annaga aan maanta sharkiina naga maqan yahay oo cid xaalkiina muxuu yahay na tiri aanan jirin annagoo dawladdii dhexe oo qaranka dhan inaan matalayna annaga ay soo haysanay ayaa si wax cad gudoomiyihii baarlamaanka asaga uu ku biiray madashii ayagaa isla qabsaday waxaaba sheekadeen ay ku dhamaatayba annaga ama qayqaylina baarlamaan xataa waa nala furi waayey maxaan samaynayna ma dagaalamayna qorimaan qaadanaynaa marka waxa waaye waxyaabo fara badan waa inaad xildhibaan dalxa aydan idin muuqanin maaragtay ninka hortiina taagan keliya taa ayaa ujeedada aan ka hadlayo ay tahay waxa aan ka hadlayo ani waa wax caam ah waa wax guud ah waa wax dhammaan dan noogu wada jirto ma aha mid qof loogu roonaanayo midna qof lagu colaadinayo marka walaalayaal usha dhexda ka qabta ha laga fikiro nolol ee aanayaan laga fikirin talo ha la gaaro talo waktigeeda nolol aanana meesha jirna sidii nolol looga heli lahaa ummadda loo badbaadin lahaa keyrkeed ay u higsan lahayd meesha ay higsanayaan ha laga fikiro walaalahayga xildhibaanada waxaan usoo jeedinahay waa intaa ujeedadana ma aha inaan annaga si gooniya aan antibaasiya uga samaysanayno shariif xasan ama si gaar ah cid kale asaga ay kaga soo horjeedo annaga aan uriixayno khalad meel walba waa dhacaya waana jira laakiin yaana khalad lagu sixin waa tahay waa maasanta xildhibaan cali xasan soo koob xildhibaan haye xildhibaan cali xasan haye soo koob si waxa u dhigay laakiin haddee dadku bini-aadanku waa kalamaan waxaa la yidhaha annaas calaa muluuki yani dadka hordooyahooday raacana la yidhaha soomaa garan marka hadduu khaldan yahay hogaanka waa khaldamayn dadka o dhan annaga taasaan aaminsannahay meesha qori kutaag maaha dalxaba waa cadaystay in asaga nafturkiisa baarlamaan laga xirtay allana taas ma ogolaanayna saasoo kalea raalli ka noqonayna taariikh waxbaa laga barta dalxa warkaysi baa la qansada hawla lama qansado marka asagaa cadeeyey intaasuu sameeyey hadda ka hor sheekh shariif inay wada tageen madaxweynihii kale ku xigay xasan sheekh annaga waxaa rabnaa koonfur galbeed ugu yaraan 4 milyan ayaa lagu qiyaasaa maaragtay tirakoob ahaan markii la yidhaha 4 milyan oo qof miyaa marka madaxweynaha xagga jooga keliya xukumayo anaga waxaa lagu filan keliya afduweyne aan ka xirana xamar anaga wax khudaarihiin soo gudbaa malaha maxaa jira danteena noolaada qaban waxaa noo samaysana oo la xisaabtami lahayd lama rabo waxa hortaagana waa madaxweyne waa shariif xasan waa hortaagan aniga naftirkay kula hadlayo yaa xafiiskiisa ugu tegay annagoo 32 xubnood ah oo kasoo jeednay shabeellada hoose waxaan ku niri waxa ciidanka 300 oo baayi boqol loogu sameeyey annagana loogu sameyn lahay maxay tahay 8 degmaanahay oo min 300 ah 2,400 waay oo hubkooda wax walba la siin lahaa maxaa hortaagan
lagu yiri xasan sheekh maxamuud hortaaga waxaan nidhi xasan sheekh maxamuud iyo anaga iska kaa horgeyn nalaga dhex baxaan ku nahay 4 milyan aan nahay waan ku mudaaharadayna xasan sheekh maxamuud asan kursiga ka tuurayna ku dhahay waa diiday wuxuu yidhi maya anaa ku filan waa taa ku filanta waaba isdiideen marka adeero waxaa yeelaysaa annaga meel kale yaana lagu jihayno annaga odayga asagaa na hortaagan xuquuqdii dadkaan asagaa hortaagan waajibaadka la gudan lahaa asagaa hortaagan annaga hor leexda ummad kale oo qubanaan keenayna waxaan ahmeediyo qori baa la qaadanaya waa qori meeshaa ku jiro annaga dad waxaan nahay waqtigaan noo saamaxayn waqtigaan noo saamaxayn aad bay umahadsan yihiin martida barnaamijka nagala qayb galay professor xildhibaan maxamed cumar dalxa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga koonfur galbeed cabdiqaadir cabdiraxmaan cali xildhibaan cali xasan cismaan iyo xildhibaan xasan balaag oo ka wada tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur dhammaan u mahad celinaynaa intaan dib ugu kulmayno barnaamij ka lamid ah waxaan ka tegaynaa sidaas iyo nabad geel